waa maxay sababtii William Saliba looga mamnuucay inuu rigooro u duuro kooxdiisa kulankii xalay Manuel Agreed oo kanax wajahaya kadib falfool xun uu sameeyay xaaska Kai Havertz oo ka shiftay fariimo naxdin leh oo lagu soo diray Instagram-ka kadib guuldaradii Arsenal iyo guud ahaan dhacdooyinkii laga soo diiwaan galiyay kulankii xalay dhexmaray Arsenal iyo Manchester United dhammaan murahan muuqaalkan ay Google wadaagi doona ay soo dhow daawade balse marka hore waxa ka codsanaya in la saarto muuqaalkan si share gareeso sidoo kale aad ku soo biirto bariga bulshada sida Facebook, TikTok iyo YouTube haddii aad ila socdo si gaar ah bartiisa TikTok waxaan ka codsanayaa inaad dirista xajaraad i daawato calaamada goobelinki aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay magacaygu waa Samuel Cadaala hagaag William Saliba oo kamid ah xidigaha kooxda Arsenal ayaa laga mamnuucay inuu rigoore u duuro kooxdiisa kadib markii Diego Dalot oo Manchester United ka tirsan casan la siiyay si kastaba haatee xeerarka FA-ga ayaa dhigaya in labada kooxood ay yeelanayaan tiro isku mid ah oo ciyaartooy ah oo rigooreyaasha tuura maadaama Dalot casan uu qaatay Arsenal waxaa qasab ku noqotay in ciyaartooy ay ka saarto liiska rigoore tuurista waxaa loo doortay William Saliba inuu yahay ciyaaraanka aan rigoore qaadan karin kulankii xalay tani waxay ahayd go'aan ku saleysan xeerar aan inta badan la garanin taas oo Arsenal fursad kale ku lumisay inay tartanka ay ku sii jirto dhanka kale Manuel Agreed oo u ciyaara Manchester United ayaa wajahaya ganaax kadib markii uu dagaal u galay dhacdo muran dhalisay intii lagu guda jiray kulankii ay kooxdiisu la ciyaartay kooxda Arsenal kulan qayb ka ahaa wareeg saddexaad ee tartanka FA Cup-ka kooxda Manchester United ayaa ku adkaatay rigooreyaal kulankaasi oo ka dhacay garoonka Fly Emirates si kastaba haatee ciyaarta ayaa ahayd mid si weyn loo hadalhayay kadib markii labada kooxood ay isku dhaceen dhowr jeer taasoo keentay in karsooraha uu ku dhibaatoodo xakameynta ciyaartaasi dhacdadii ugu weyneed ayaa ahayd markii Manuel Agreed uu madaxa ku dhuftay Kai Havertz xidiga Arsenal intii ay socotay ciyaarta Havertz ayaa dhulka ku dhacay taasoo dhalisay isku dhac kale oo dhexmaray xidigaha labada kooxood haddaba xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ee FA-ga ayaa baaraya dhacdadaasi waxaana la filayaa in Agreed uu wajaho ganaax ciqaab ah ciyaartan oo ahayd mid adag oo xiiso badan ayaa lagu arkay dhibaatooyin waaweyn oo xagga anshaxa ah taasoo FA-ga ay doonayaan in talaabo adag ay ka qaadaan dhinaca kale xaaska Kai Havertz Sofia ayaa muujisay fariimo naxdin leh oo ay ku beegsanayaan saygeeda dad baraha bulshada isticmaala kadib guuldaradii Arsenal ka soo gaartay Manchester United kulan ka tirsanaa wareeg saddexaad ee tartanka FA Cup-ka xidig reer Germany ayaa rigoorihii go'aamiyay ciyaarta ka khasaariyay Arsenal taasoo keentay in kooxda ay ka harto tartanka iyadoo Sofia ay baraha bulshada kala kulantay hanjabaadyo argagax leh oo xitaa ka dhan ah ilmaheeda uurka ku jira Sofia ayaa barteeda Instagram-ka ku soo bandhigtay fariimo cabsi leh mid kamid ah fariimaha ayaa u qornaa waxaan rajaynaynaa inaad ilmahaaga iska soo rito taasoo ay ugu jawaabtay cid walba oo u maleysa in wax noocaan ah la qori karo waa mid runtii la yaab igu ah waxaan rajaynayaa inaad aad uga xishooto ficilkaaga fariin kale oo naxdin leh ayaa loo soo qoray oo ah waxaan gurigaaga u imaanayaa si aan u dilo ilmahaaga kulama ciyaarayo ay sug taasoo Sofia ugu jawaabtay ma aqaan xitaa waxaan yiraahdo laakiin fadlan isxakameeya waxaan nahay dadka wanaagsan sidan Arsenal ayaa durba talaabo ka qaaday hanjabaadtan loo soo diray xaaska xidigeeda Kai Havertz si laga soo xigtay The Evening Standard kooxda ayaa la xiriirtay shirkad qaas ah oo ku takhasustay baaritaanka dhibaatooyinka qadka internetka si arrintan u baarto Kai Havertz iyo xaaskiisa Sofia ayaa iskuursaday sanadkii hore iyadoo warbixin ku saabsan uurka Sofia la shaaciyay bishii November Havertz oo 25 jir ah ayaa hore uga hadlay saameynta nolosha ciyaartooynimo ay ku yeelan karto nolosha qoyska ugu dambeyn adiga aan daawade sidee u aragtaa hanjabaadta loo soo diray xaaska xidiga kooxda Arsenal Kai Havertz kadib rigooriya xalay kooxdiisu uga khasaariyay hanjabaaddaasi miyuu mudnaa laacibka mise waa looga qaldan yahay in xaaskiisa fariintaasi loo soo qoro adiga aan aragtidaada waxay tahay qaybta hoose ee commentiga igu soo qor mahadsanid